caawa wararka caafimaadka ayaynu ku jirnaa falanqaynteena toddobaadkan khamiista waxaan ku soo qaadanaynaa maalinta berri ah ee 2 Abriil waxa ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta autism-ka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO 160 caruuraba mid kamid ah ayaa qaba autism spectrum disorder waxa la yiraahdo inta badan dadka qaba autism-ku waxay kala kulmaan qaar kamid ah bulshada takoor ceebeen ama xadgudubyo kala oo saameyn ku yeeshay noloshooda hadaba si aynu ogaano saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed autism-ku waxa barnaamijka caawa igala qayb galaya Saamiye Maxamuud Cali oo madax ka ah hay'adda daryeelka autism iyo Nuura Caabi oo cilmi nafsiga ama psychologist ah isla markaasina cilmi baadhis sameysay oo ku sameysay autism-ka soo dhawaada labadiina waan soo dhaweynaya haddaynu barnaamijka guda gallo Nuura ayaan ku bilaabaya Nuura adigu waxa tahay hooyo de ilmo qaba ama inaan qaba autism-ka xaaladiisaasi soo koriyay marka dadka wali Soomaaliyeedna autism-kii wali aad looma fahmin inkastoo imika wax badan aynu ka hadalay adigoo soo koobaya bal noo sharax autism-ka iyo wuxuu yahay iyo waxaad ka aragtay aad baad mahadsan tahay Cabdiraxmaan haddaan marka hore ku bilaabo maxay autism tahay autism waxa ay tahay ilmaha waxay ka efagaraysaa ama ay wax ka yeeshaa xagga hadalka xagga maskaxiyan inay sawirtaan informationka guud ee nolosha aynu ka aragno iyo sida dadka loo dhex galo badanaana ilmuhu marka uu bilaabo inuu dhasho ayaa marka ay marayaan ilaa iyo 12 bilood ayay laga dareemi karaa in maxay ahayd ilmuhu sidoo uu korayo in aanu u korin marka waxa muhiima oo aad iyo aad kula taliya waalidada Soomaaliyeed inay la talaabo qaadaan ilmuhu astaamaha developmentka ama koridda marka uu dhasho inay indho gaara u lahaadaan waayo waxa jira stage ilmuhu maro oo cadaysa haduu ilmuhu stage-yada mari waayo in ay keento warwar amaba in laga maleeyo ilmaha waxa ku keeni kara amaba maskaxiyan hoos u dhigta sida ay wax u fahmayaan marka waxa muhiima markastaba ilmuhu markuu sidaa soo dhasho hooyadu inay la jaan qaado halkuu maraya waan gartay halka noloshiisa waan gartay Nuura wad mahadsan tahay Saamiya ayaan gudbeen Saamiya hay'adda daryeelka autism UK tiin ka hawlgasha markaad eegto waalidiinta Soomaaliyeed ayaa ka caawisan caruurtooda ay qabaan autism-ka marka maxaad nooga sheegi karaysaa bal caqabadaha ugu waaweyn ee la kulantaan ama caqabadaha ugu waaweyn ee waalidiintu la kulmayso waa maadsantaa Cabdiraxmaan anigu naftirkeyga waxaan ahay hooyo haysta wiil autistic ah wuxuuna jiraa 20 sano sababa uu kaliftay inaan sameeyno hay'adan ayaa waxay tahay caqabadaha ugu horeeya waxa kamid ah waalidka Soomaaliyeed la kulmaan xagga luqadda xagga maxaan ku dhahay inaysan ogeyn waxyaabaha ilmahooda ama ayaga waalid ahaan available u ah oo serviceyada caawin kara sida ilmahooda u caawin lahaayeen sida u fahmi lahaayeen waxa uu yahay autism-ka waxa kamid ah dhibaatooyinka ka yimaada xagga bulshada oo ah waalidkii ayagoo la dhiirgareynaya ilmahoodii markaas xaalad ay ku sugnaayeen haddana ka baqa bulshada waxyaabaha kaga imaan kara oo ah in lagu caayo in lagu aflagaadeeyo baqitaankaasna uu keeno ilmihii iyo waalidkii inaysan helin waxyaabihii ay u baahnaayeen oo ilmaha sirka ku gaari lahaa horumar waan gartay Nuura markaad eegto waa barnaamijka inagu wacyigelin ku siirna waalidiinta Soomaaliyeed maxay tahay talada aad imka siinayso hooyooyinka Soomaaliyeed ama aabayaasha barnaamijkeena daawanaya ilmahoodu uu autism-ka xaaladiisa ku jiro waxaan ilaa xad hooyooyinka Soomaalida ama aabayaasha Soomaalida kula talinaya hadii lagu sheego ilmuhu inuu autism leeyahay fadlan u sheeg hay'adda caafimaadka ee kolba dalka aad joogto isku day talo dheeraada inaad ka hesho saad ilmahaaga u caawin karto iyo inaad fahanto maxay autism tahay waxaan ilaa xad kula talinayaa in ay isku dayaan inaana ilmuhooga qarin ay caawimo u doonaan waayo early intervention waa vital aad bay muhiim u tahay ilmuhu markuu yar yahay inuu caawimada uu u baahan yahay uu helo Cabdiraxmaan filimada aanu sameynayno launch gareynay Mondaydiina aad bay uga caawinaysaa hooyooyinku inay uga faa'iideystaan aabayaashuba waa 5 film waxay cadeynaysaa ilmuhu haduu duwan yahay maxay sidee u caawin karaan haduu ilmuhu maxay marka lagu sheego ilmaha autism sidee u caawin karaan caawimo xagee ka heli karayaan waxaan ku dhiirigelinayaa in aad ku dhiirataan oo daawataan filimadaasi YouTube-ka ka helaysaan Cabdiraxmaan insha Allah si balaarin doona waad mahadsan tahay Nuura Saami adiga laftigaagu maxaad talo adigoo Nuura sii raacaya hadii ay wax ka tagtay maxaad kula talinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed idinkoo la shaqeeya ururkiina oo caawiyo
maxaa tale halkan aad uga gudbinaysaa waxaan kula talinayaa waalidka Soomaaliyeed ilmaha yar ee autistiga ah uu weynaan doona wuxuu noqon doonaa qof weyn oo macnaa qof qaangaaray oo weyn in loo diyaariyo nolosha qaangaarnimada si ay nolosha u noolaadaan ee mujtamaca ula jaan qaadaan waan gartay xaggan kale saamiyay haddaan kugu soo noqdo waxaa jirta in sidaad sheegtay takoornimo in laga takooro caruurtaasi oo la ceebeeyo oo maalinkan maanta kelmado xun lagu yidhaahdo taas laftigeeda sideeba looga hortagi karaa markaad eegto waxa qabanaysaan waxaa looga hortagi karaa wacyigelin fara badan oo ay sameeyaan waalidiinta hay-adaha u gaarka ee caawiya waalidka maxaan ku rahdaa sida idinkoo kale mediaha social mediaha wacyigelin fara badan haddii la sameeyo waxaan aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed ama waalid ha ahaadaan ama dad mujtamaca normalka oo ilmaha haysan ha noqdaan ay fahmi doonaan sida ay u joojin lahaayeen eedeynta iyo ceebeynta ay ceebeenayaan ilmaha iyo waalidkood nuura waxaan ku soo noqonaya xagga cilmi baadhista iminka autismka in badan baa la soo waday waliba wadamadan horumaray maxaa iminka ugu dambeeyey maxaa loo hayaa xagga ama ha noqoto hab loola macaamilaya ilmaha ama dawo ha noqoto ama xitaa cunto ha noqoto maxaad xagga nagaga kordhin karaysaa cilmi baadhisyaa la sameeyey ugu dambeeyey walaal aniga laftirkaygaaba iminka PhD-gayga ka sameynaya jaamacadda Bristol University aniga oo eegaya autism iyo gaar ahaan dadka BAME-ga laakiin haddaynu eegno xaguu iminka cilmiga ugu dambeeya maraya reportkii ugu dambeeyay iminka waxa la publish gareeyay weekani Cambridge University baa laga publish gareeyay kaasi gaar ahaan si wuxuu eegayay in sidoo dadka autism lihi ay ka badan yihiin sidii hore la moodayay waxaan ugu dambeeya cilmi ahaan walaal in aad iyo aad ilmaha early diagnosis uu helo ilmaha xagga ugu horeysa marka loo sheegay la yiraahdo autism buu leeyahay in ay helaan caawimaday u baahan yihiin early intervention in loo sameeyo oo la isku dayo xagga guriga iyo xagga iskuuladaba si isku mid ah ilmaha in looga caawiyo xaggan kale nuuray cuntooyin miyay jiraan ama hab dawaa miyay jiraan wax kale oo cusub iyaga soo kordhay walaal halkaas baaritaan ku filan oo inoo cadayn kara cunto ama dawooyin daweeya ma jirto laakiinse waxaynu ognahay marka waxaa jira waxyaalo badan oo lojiga oo aynu naqan faysano waad mahadsan tahay saamiya adiga hay-addiinan daryeel maxaad qabataan ee aad u fidisaan waalidiinta Soomaaliyeed ee oran kartaa waa qodobkaasi kaas sidee baa se idinkula soo xiriiri karayaa oo dadka u siin kartaan adeegina waxaan qabanaa waxaan caawinaa waalidka waxaan ka caawinaa haday noqoto inaan barno ama u sheegno waxyaabaha ayaga ilmahoodaba u ah available wadankan waxaan kaloo la shaqeynaa dadka professionalka ah oo aan barnaa waxyaabaha la yiraahdo culture appropriate sida ula dhaqmi lahaayeen waalidka Soomaalida ilmahooda waxay noola soo xiriirin karaan hay-adeen waxa la daryeel autism waxaan leenahay Facebook page waxaan leenahay YouTube meesha ayay ka heli karaan maxaan ku raadaaye teleefanadeena iyo sidaas aynu ugu soo xiriiri karaan waan gartay waxaan kusoo gabagabeynayaa waad ogtihiin dhulka Soomaalidu degto oo dhan autismku ka jira magaalooyinka waaweyn baa imika meelo laga furay Muqdisho iyo Hargeysa kala wada aragteen ama Djibouti maxaad iyaga ka war haysaan idinkoo soo koobaya Nuura walaal kulli wali ilaa imika way cusub tahay in si furan oo ballaaran ama sharciye kama yaalaan dalalkeenii in wax laga qabto amaba la caawiyo dadka autism kale laakiinse waxa bilaabantay inay iskuulla ka jiraan iyo in laga hadlo taasoo aan ku rajo weynahay baaritaanadayada aanu ka samaynay under autism independence iyo maxay ahayd hooley dadka badan ee ka hadlaya dibadaha jooga inay dhiiri geliso dalkiina inay ka caawiso waan gartay Saamiya نور شكت مور عن كهذا لأن أيقون مور فهمي دونان وحنا جينا إن شاء الله مستقبل كإنا إنه نقطة معقول إن نجينه ريسورس ودن كني سوماليا أم سوماليا مش دون طبعا نقطة سيدا درت إن أنكو عاونو دتك جوجا سوماليا ودن إن شاء الله وتهي أن وحن كبحيا هل كان إن سؤاله ويقدر ما ذنب عن أوران لها أوتيسم كعوة نورا أن هدين سوق بجبينه محاد وسوت شيدين يسامالين تن labada April baa leeyahay waxa la qabanayaa munaasabadahaas sidee u dhacayaan sideeba loo sameeyaa wacyigelintaasi walaal kulli halkaynu ku jirnay COVID-19 sidii ay awal ahaan jirtay noqon mayso laakiin se waxa ugu badan laga hadlaa waxa weeyaan
in aan caqabad iyo dhibaato autism loo arko waxa weeyaan culays laakiinse in la celebrate gareeyo in la appreciate gareeyo iyo in ilmaha yar wax lala qabto waa mahadsantihiin aad baan idinku mahad celinayaa nuura caabi oo iga soo birtay magaalada Bristol oo ah psychologist ama cilmi baadhana ku sameysay cilmiga xaaladda autismka iyo Saamiye Maxamuud oo ururka autismka UK iyaguna caawiya waalidiinta Soomaaliyeed oo magaalada Leicester iga soo birtay falanqaynta khamiista oo ku saabsanayd barnaamijka ku saabsan wacyigelinta autismka intaas ugu dhan yahay labadeeda marti aad baan ugu mahad celinayaa waa mahadsan yihiin intaas ayaan kusoo gabageynayaa barnaamijkii caawa iyo caalamka anigoo Cabdiraxmaan Bidhaana waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin daawashadiina inta aynu mar kale dib u kulmayno haddii uu eebba idmo berritoole waxaanu dhammaantayd kaga tegaynaa bahda telefishinka Soomaalidu sidaas iyo nabadgelyo